waa qabuul jirday Ismaaciil runtii markaan ugu horeysay shaqada helo booska banaanaba wuxuu ahaa waiter markaan waiterkii galana waxaa la arkay in shaqadii waiterka ku fiicanahay customer badan ay jeclaadeen dad badan ay soo dhaweeyaan ay ka helaan saan ula shaqeynay marka way shaqada haday xataa soo baxdo in la igu dhiirigeliyo ilaa mushaarka lagu kordhinaya lacagta lagu kordhinaya qaybta waiterka ayaa aad la igu doortay markii dambe waxa dhacday maxaa la yiraahdaa qof baan keenay أنا رقبك سنين تابريا ويترك هالنقطة أنا جانا هلا يجيب بدلو قيمتهم كوجا هلا يجود درف سدا يبانها فرصة ذاك اللي يجوزن ويترني ما دوّحنا كل شقين يجي مدة صدق سنة يبرد ويجارس أول بس ما كل شقين مر بروفيشنال بانها يقف واحد صار لبانها بيتزا إياه بيجر كي فيش بيجر كي هلا هذا شوارما ده بنسميه شري كاشير وقصو شقين صدق شقوا وانسوق بتاعي في مليجا ويقولون شرين هردها نسكده markaad waa in badan waxaan muddo waytarnimada la igala hadlaba waxaan u bedelaynaan qaybta professionalka ku biiro oo cuntooyinka soo saaro fast foodka sida burgerka iyo maxaa pizzada iyo juice iyo cake iyo waxyaabahaas aan sameeyo waxyaabaha soo saaro baan u bedeshay runtii markaad hadaf dheer iyo aad riyal leedahay kuma muuqanayaan caqabadaha dadku ay kugu hayaan laana waxa la dantaadii in waxaaga toona lagama dilboodo Soomaalidu waxay u jirtaa adigoo gabar qurux badan oo Soomaaliyeed seed qof u istaagiseed qof dalab uu qaadi kartaa seed wuxuu weydiin kartaa seed ku siin kartaa miyaad ku fiin miyaad turunturoonay xeeban noocaas la yoran jiray aniga fikirkaygu wuxuu ahaa inaan meheradaha ka shaqeeyo aan sara maro oo dhaafo oo ganacsatada ko kala noqdo oo la tartamo ayaa riyadaydu ahayd marka markasta mushkiladaha ay dadku igu hayaan waxa ka ham badnaa ama ka xoog badnaa hamigaan anagu u hay shaqada kadib waxa ii suurta gashay inaan bilaabo maxaa la yiraahdaa ganacsi in badan ma ka fikri jiray inaan ganacsato ku biiro oo ku hamiyi jiray waxaan qorshaystay inaan wax yar aan sameeyo marka ganacsigaygu wuxuu bilaabmay bil Ramadaan ayuu bilaabmay Ramadaantii marka waxa Ramadaantan la dhaaftay Ramadaanteedii baa waxaan isku dayay inaan meel oo wajahaada hadda oo meeradan horteeda inaan xabxab iyo saambuus iyo waxyaabahan afrooyinka qudaarta aan diyaariyo sidii aniga u diyaarnay waxaan igu dhalatay inaan bisha Ramadaan kaga faa'iideysto ciidda inaan meel furo marka waxa ilaahay mahadi weeyaan waxaan helay banaan baan helay oo soo jeedka ah qolkii baan kiradiisii bixiyay kii baan galay meeraba ciidii baan furay meherad yar bay noqotay macaamiil baa yeelanay waxa la yiraahdaa marka waxaan alxamdulillah meeshan oo suban la kulmay meeshii baan kireystay hadii ba sidaas lagu soo wareegay sida meheradii na igu hirgashay ganacsigina igu hirgalay gabadhan walaalanahay oo wadanka maqneed baa timi gabadhii waxaan ku dhiirigeliyay inaan wada shaqeysano kadib walaashay waxay ku tiraahday waa okay hadii aad adigu shaqadii garanaysid waa wada shaqeysan karnaa iyada ay gacan qabatay shaqada saasoo ku bilaabay alxamdulillah ilaahay mahadi weeye martu ganacsigu waa wax aad u fiican qofka bilaadankaana markuu ganacsi galo xorriyad badan buu dareemaa oo qofkan cid caqabadaynaysa ma jirto isagii wax soo saar leh oo ku dayasho mudan marka ganacsigu waxaan aaminsan inuu yahay wax aad u fiican oo qofka bilaadanka naftiisa raali gelinaya waxaan kula tarin lahaa in aanay waqtiga waxa taagan uga fikirin ay ka fikiraan inay ganacsato noqdaan ay ganacsiga balaadiyaan fikirka balaadiyaan isku dayaan inay noqdaan dad maanta hadaf leh oo diila leh qofka bilaadanka horta inuu dareemaha fiican inuu isku filaan karo dad istirada qof bilaadana wax ka sug ama family wax ka sug waxyaabo badan baahida bilaadan kuma dhamaato maanta ay soo kartid maanta baahidaadi way dhamaatay waa marka adiga ay wax ku soo baxaan ee maanta xoog ay ku shaqeysan kartid ama qof soo shaqee ama mid aad leedahay ba ilaahay ha ku hirgeliyay marka hablaha guri joogta ee guriga jooga ee fikirka khaldan aaminsan inay gabadha banaanka u soo baxday shaqeysataa gabadh qaldan ay tahay waxaan oran lahaa in qofku shaqeysto wax qabsado aad bay muhiim u tahay soo baxa shaqeysta in la shaqeysta meherada walaalihiin ka shaqeeya kadib waad gaari doontaan idinkuna hami fiican waalidiinta waxaan kula talin lahaa qofkan bilaadanka maalin kasta waalid ma hoos joogayo maalin buu shaqo hawsh ku soo fakanaysaa